ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 11aad qaybta 43aad iyo ciidanka kumaandooska danab oo kaashanaya ciidanka nabad sugidda Jubbaland ayaa guulo weyn ka gaaray dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Maanbile ee jiinka webiga Jubba ee duleedka degmada Jamaame. Dagaalkan oo qaatay ku dhawaad 4 saacadood ayaa ku bilowday weeraro qorsheysan oo ciidamadu ku qaadeen godad ay maleeshiyaadka khawaarijta ka qoteen jiinka webiga Jubba. Intii uu socday dagaalkani ayaa khawaarijta waxay adeegsadeen dhammaan xaalado ay isku difaaci kareen, balse ciidamadu waxay muujiyeen adkeysi iyo isku duubni iyo geesinimo sare leh iyagoona si buuxda u galay godadka ay khawaarijta ku dhuumaaleysanaysay. Ugu dambeyn waxaa si buuxda loo jabiyey khawaarijtii ku sugneed godadkaasi iyadoona duqeymo dhanka cirka ah door weyn oo wax ku ool ah ay ka qaateen guusha laga gaaray jabka maleeshiyaadka argagixisada la gaarsiiyey. Khasaaraha gaaray maleeshiyaadka argagixisada dagaalkii maanta dhacay ayaa la sheegay ilaa 70 xubnood, halka tiro kale oo halkaasi ku gaaray dhaawacyo culus. Sidoo kale ciidamada ayaa soo riday diyaarad daroonis ah oo maleeshiyaadka argagixisada u adeegsan jireen basaasida ama waxay ugu yeeraan qaraxyada. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa muujiyey guulaha la gaaray ay saldhig u yihiin iskaashiga dhabta iyo howlgallada wadajirka ay fulinayaan oo marba marka ka dambeysay ay guulo wax ku ool ku gaarayaan ciidamada geesiyaasha ah.